saddex guur la'aanta ayaa keenta oo qofku haddii uusan guursan saddexdan mid ayuu ku jiraa ama saddexdaba wuu ku wada jiraa ama laba kamida ayuu ku jiraa haddaba maxay tahay haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqatay waxa ka codsanayna in page-kan oo follow garayso asxaabtii hore noo joogtana muuqaalka like iyo share lagama kaftamin bil caleeg yaana ka kaftamin bil caleeg okay saddexdan guur la'aanta ayaa keenta muuqaalkan si gaar maanta wuxuu u socdaa iskaabulada iyo kuwa wali guursan walaal isku guursada saddex guur la'aanta ayaa keento kow gablanka guur la'aanta ayaa keenta oo qofku haddii uusan guursan xaruurba dhalimayo xaquu ka keenaya macirka ka soo daayaan waa maya ma dhulka ka imaanayaan waa maya ma dariska u keenaya waa maya qofku haddii uusan guursan oo da uu ku gaaro 80 90 100 40 50 kor u dhaafo haddana uusan guursan day waa gablan xaquu keenaya ilmo ma soo dhalanaya waa maya marka qofku gablanka waxa uu keenay inuu guursan waayo marka waxa ku leeyahay si aad u gablamin guurso tan labaad waxay tahay gaabsiga qofku haddii uusan guri lahayn oo san xaas lahayn oo san xilal lahayn oo nin lahayn oo naag lahayn oo wax de lamaana uusan lahayn waxa u fudud qofku arkaba inuu maqaalinta sirto qofkii u arkaba inuu kaawada sirto dirac uu arko saal adu wiil yahay dirac uu arko daba soco haday gabar tahay shaarkii arko daba soco xishood ma jiro wax kastaad gacanta la gelaysaa wax badan baa falkinaysa cudurro badan baa saameynaysa marka gaabsiga waxa keena guur la'aanta bil caleeg haddii aadan guursan wax ku dhacaysa xumaan badan baad faraha la gelaysaa marka walaal bil caleeg si aasan taas kugu dhicin guurso bil caleeg naga guurso bil caleeg waa fadhigaagu iyo soo jeedkaagu waana dila bil caleeg maalin kasta halkan baa soo jeedaa habeen kasta waa dhafraysan taleefon aad dhigta ku haysaa bil caleeg mana guursanaysid bil caleeg xagee u socotaa walaal macaan ma cid qarashkeeda lagu diray waa maya walaal ka kac meesha guurso bil caleeg tan saddexaad waxay tahay guri la'aan ninku hadduu sanba xaas iyo reer iyo lahayn ama gabadhu aysan diilaa ku nin lahayn de guri ma leh waxa laga yaabaa mid ugu fiican guri hooyadu ku nool yihiin hadday ka baxaan de magaalka ku jiraan ama hotel u jiifa ama guri saaxiibkiisu u jiifa ama guriga dariska u jiifa meel loo raacdo male maalinta wacdaba hadba meel u jooga guri male goodi male meel male tan kale taa kugu daree ninkuba de Soomaaliya kale markii la joogo waa yar yahay nin iska bulaa hantiila aduu bal nin iska bulaa dabaq la soo raadid waa kana bal raadid taariikhda ka goob helimis da sababtuna waxay tahay ninku markuu xoogaa dhaqaalaha helo marka hore buu guursanaya kadib waa hanti iyo wax kala sii dhisanaya kuma jiraan de kuwa dhaxalka ku helay anu kama hadlayno kuwa shaqaysta ka hadlayna bil caleeg kuwa hameen kasta sariirta kor fadhiya bil caleeg sariiraha laga kaco sariiraha la guursado bil caleeg guurku waa faa'iido marnaba qasaaro maaha hala guursado bil caleeg وأنا حتى واحد سميسا الصوت تجابي حتى بالعليك وحون سواها هلا حتى كدي ودارتي وح كوديلي لكن استجابي وحلي هذا وحلو فرفر حمود جورك أو وناكس وحن توقف السمايو بلا طلع حتى صد الله تشنتو السمايو فرفر حما أو أنتو تقول هذا لسه حما دور أبوك حما ده جورك أو وناكس بالعليك قصار ملك جورك مرنا قصار ملك مركا ويراتو عنق باري بيسا مركا ويراتو واحد نقولنا هذا ننتهي نكي هذا كهر ده حاسك يا شيء ما فهمت haddaad gabartaana mar waa noqonaysaa bil caleeg ugu yaraan magac baad helaysaa marka u yaraato marka walaal macaana hal la guursado bil caleeg guurku waa faa'iido waa insha Allah wada leh mar kale xigmadu ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh